guddiga golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sharaxaad ka bixiyay go'aanadii u dambeeyay ee ku aadanaa sugidda amniga magaalada Kismaayo ee maalmaha doorashada. Waxaa faahfaahiyay la taliyaha madaxweynaha ee dhanka amniga Generaal Cabdi Mahdi. shirkaas uu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayid Aadan kana soo qayb galeen wasiirada iyo sareeyaasha ciidamada Jubbaland iyo SNA intuba waxaa looga hadlayay arrimaha amniga iyo xaaladaha degdega intaba. shirku wuxuu dhageystay warbixintii iyo xogihii hay'adaha amniga Jubbaland ay soo bandhigeen, wuxuuna garwaaqsaday hoostana ka xariiqay inay iman karaan arrimo khatar ah. dood iyo falanqayn kadib shirku wuxuu go'aansaday ama wuxuu soo saaray qodobada hoos ku xusan oo ay ka mid yihiin waxa la joojiyay ama waxa la mamnuucay muddo kooban laga bilaabo 20ka bisha ilaa 23 bisha August. waxa la xiray cirka dhulka badda oo area Kismaayo intaba iyadoo loo eegayo arrimaha amniga awgood. waxaa heega buuxa la geliyay ciidamada Jubbaland iyo kuwa SNA ee ku sugan deegaanka Kismaayo si loo sugo amniga iyo xaaladda intaba. waxaa la joogteeyay ama waxaa lagu amray ciidanka booliska Jubbaland iyo booliska AMISOM intaba in maalinta doorashada ay si wanaagsan u fuliyaan howlaha amniga iyo goobta doorashada gaar ahaanba. sidoo kale waxaa la joojiyay ama waxaa la mamnuucay inay ka soo degaan garoonka diyaaradaha, dekadda, kontaroolada magaalada Kismaayo soo galay. ammaanka guud ee Jubbaland ama magaalada Kismaayo iyo gaar ahaan goobta doorashada waxaana la hakiyay muddo kooban inay wax ka soo degaan ama wax ka soo galaan garoonka diyaaradaha ee Kismaayo ama Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan, dekadda, kontaroolada intaba. waxaana loogu talagalay in si habsami ah ay u socdaan amnigu, isla mar ahaantaana laga faa'iideysto xogaha iyo wararka la xaqiijinaya ee dhici karta inay yimaadiin arrimo khalkhal ku ah ammaanka ama ka soo horjeeda xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka magaalada iyo habsami socodka doorashada Jubbaland ee xilliga cayiman. sidaas darteed waxaa la joojiyay gaadiidka ka imanaya kontaroolada ka soo galaya iyo waxa ka imanaya maxay ahayd cirka iyo dhulka intaba. sidoo kale dadweynaha reer Jubbaland waxaan ka codsanaynaa inay muddada yar ee arrimaha amniga la sugayo ay adkaysi yeeshaan oo ay maxay ahayd muddadaas amnigooda lagu sugayo oo xaaladda lagu qiimeynayo inay u dulqaataan arrimaha amniga iyo xiritaanka goobaha muhiimka ah si looga gaashaanto in si sahlan loo dhaxgalo amnigeena ama loo waxyeeleeyo nidaamkeena degan iyo xasiloonida intaba. waxaan rajaynaynaa in arrintaasi si maxay ahayd hakashalaana ay ciidamadu u fulin doonaan. waxaa heegan buuxa la geliyay ciidamada Jubbaland iyo maxay ahayd iyo kuwa SNA waxayna ku sugnaanayaan goobahooda maxay ahayd ay ku sugan yihiin.